taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Waajid ee gobolka Bakool. Wafdiga taliyaha ayaa degmada Waajid waxaa ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaha kala duwan waxgaradka bulshada magaalada, waxaana kulan uu la qaatay waxgaradka degmada Waajid ee gobolka Bakool iyagoona ka mahadceliyay booqashada taliyaha ciidanka xoogga dalka isla markaana ugu warbixiyay xaaladaha iyo xogta ku saabsan xaaladda guud ee degmada Waajid iyo arrimaha ciidanka, iyagoona markaasi sheegay in xilli loo baahna uu taliyuhu gaaray degmada Waajid. kan garanayno magala intii horta qoortan geed ma santin markii saasata degmadu ma ilaahay ma kanay ma ilaahay degmadu oo qadiim ah shan sano oo istaraatiijiyad oo kataabo ma ilaahay soona ciidamadii dawladda ma siyaadara xarabo ma idan kaaya xarabo marka horta qalbo sinjir taas ma idin kala soo dhawtay deegaanka degmada Waajid ku soo sida gudoomiyaha ku sheegay deegaankan waxa looga baahan yahay dawlad, waxa looga baahan yahay askar dhalinyaro oo oynaysa askar baa rabaa deegaamadaas mid jirta ma dhalinyarada ingiriiska ku oynaysa maalmihii soo dhaafay labada marka la hareynay labada la qaaday hadda waa dawladda waa dawlad jecel weyntaas. dhinaca kale taliyaha ayaa kulan degdeg ah la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool, isagoona ka dhageystay arrimaha markaasi ku saabsan howlgallada iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidankan oo muddo sanado ah halkaasi ku sugan, iyagoona sheegay in taliyihii ugu horeeyay oo ah ciidanka xoogga dalkaas uu gaaro taliyaha xoog oo Waajid ciidankan 2014 la qabtay oo taliyaha xoog loo dhax istaagay adaa ugu horeeyay taas sharaf iyo karaamo noo ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa bogaadiyay howlkarnimada ay markaasi ciidanka xoogga dalka ay u howlgalayaan degmada Waajid ee gobolka Bakool. 12 sano idin dhamaatay hadda inta degmadan la joogo 12 ka sano waa ku adkaysateen waajibkii aan qaranka u haysayna waa ku adkaysateen adeegida bulshada u adeegayseen iyo cadawga aan ka hortaagneedeen waa u adkaysateen waana ku guuleysateen dabcan waxa ogaatiin dadkan deegaankan ku nool hadaydan idinka ahaan lahayn meeshan ma joogi lahayn walaalo badan ama saaxiibo badan ama dhalinyaro badan oo idinka ka tirsan waxa laga yaabaa nimankan qawaariijta ayagoo la dagaalaya inay ku shahiideen qaybtood ay ku dhaawacmeen qaybtood ay ku naafooween 12 sano kadib deegaankan markii la xoreeyay cadawga aynan u suura galin intay imaadaan degmada Waajid ay dhibaato ka geystaan dhexdeeda waa isku dayeen Soomaan waliina waa isku dayayaan daraaday ahayd markay ka fakarayeen inay dadkan deegaankan ay dhibaateeyaan maanta waa ka fakarowaan waxay u imaan laayeen horta waa joogitaankiina waa markuu horeyso waa mahadsantihiin waa adkaysateen inaanan Waajid la fadhina la rabaa Soomaan waxa la rabaa inta iyo Xudur iyo inta iyo Baydhabo dhaxdooda inuusan shabaab uusan sii joogin la idin ka rabaa duulayda insha Allah inta soo diyaarsan Soomaan nimankan qawaariijta dabcan saa ogtihiin waayada ugu dambeysay ayaga laftirkooda waa dhiig baxeen waa dhibaatoodeen waa burbur ay ku dhow yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah waqti kooban ummadan 12 sano dhibaato ku hayeen Soomaaliya 20 sano wax ku sii dhow 20 kan sano ummadan dhibaayeen haddii san ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uusan hortaagnaan lahayn dhibaatadii gaarsiiyeen ka badan in ma ganaa inay gaarsiiyaan.